xogayaha ciyaaraha ee xisbiga mucaaradka ee wadani Yunis Axmed Yunis oo maanta shir jirayd ku qabtay xarunta dhexe xisbiga wadani uu ku leeyahay magaalada Hargeysa waxa uu ka jawaabay hadal ka soo yeedhay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland kaasi oo ahaa in xisbiyada mucaaradka ay ka xun yihiin horumarka Somaliland. Yunis Axmed Yunis xogayaha ciyaaraha ee xisbiga mucaaradka ee wadani oo arrimahaasi ka jawaabay waxa uu yiri waxaan jecelahay inaan halkan ka soo jeedino hadal ka soo yeedhay wasiirka arrimaha gudaha Somaliland dooratoole markii Hargeysa stadium lagu soo gabagabeynayay maratoonkii lagu magac daray Somaliland Marathon. wasiirku wuxuu yiri xisbiyada mucaaradka waxay ka soo horjeedaan guulaha Somaliland bay ka soo horjeedaan oo ciyaarihii ay lahaayeen lama qabanayo waa naga qabanay reer Somaliland oo ma aragtaan waxa noo soo baxday inuu wax aragtiya ka haysan doodii taagneed wasaaradda iyo xisbiyadu isku hayeen ahayd wadamadan la aqoonsan tartanka loo qabanayo Somaliland baa lagu qabanayaa iyo ha lagu qabtay sidaynu qabanayo baahideena sidaynu u daboolana baahi badan baa ciyaari dalka ka jirtay sidee baynu wax uga qabanaa waxa muuqata inuu wasiirka arrimaha gudaha ka haysan wax aragtiya kuwa wasaaradda joogaana u sheegin wasiirku wuxuu muddooyinkii ugu dambeeyay muddo ku siman deyntii Somaliland jirtayba mucaarad buu ahaa dawladii Cabdiraxmaan Tuur Allah yarxam mucaarad buu ahaa cigaal Allah yarxamiyo mucaarad buu ku ahaa riyaale mucaarad buu ku ahaa 8 sano Muuse ninka la yiraahdo Axmed Maxamed Silaayana isagii madaxweynaha imka mucaarad bay hayno iyo ko kulmiyaaba dibadda ka joogan mucaarad bay mucaaradadii baad moodaa inuu la adapter la sameeyo ay jirkiisa iyo ruuxdiisa gashay wuxuu wasiirku garanay inuu yahay wasiirka arrimaha gudaha laga doonayo wax qabad laga doonayo horumar laga doonayo inuu qaranka difaaco wali laakiin wuxuu isku haystaa mucaarad dawladda dhaliilaya marka xoolana horta mucaarad ma tiid tan tawleeyahay guulaha Somaliland bay ka soo horjeedaan mucaaradku wasiir guulaha Somaliland ma waxa uu taqaanaa dhalinyarada reer Boorame waraaqdi xafiiska ka soo baxday ku xidhan muddo 7 cisho ku siman xabsiga Boorame ku xidhan xaqoodii xuquuqdoodii dastuurkii waraaqdi aad xafiiska ka qortay ku xidhan yihiin ma waxa guusha Somaliland u taqaanaa dhalinyarada darbajiifka masaakiinta ah qaranka weydiistay taabiyo taakule qaranku xidhay maxkamaddu xukuntay 6 bilood oo xukuna jeelka lagu dhaadhiciyay qaranka ma waxaad u haysataa guulaha qaranka ma waxaad u haysataa markii aad kulmiyaha haydeen mudaharaadkii iyo buuqii iyo xabadii iyo dhiigii iyo dhimashadii dhalinyaradii aanagu saaxiibka hayne aad banaanka u soo saarteen ku dhintay mudaharaadadii markaasaad u haysataa guul maaha guul darradu waxay hoggaanaysaa maamulkaaga wasaaraddaada aad mas'uulka ka tahay waa markii koowaad ee dad reer Somaliland inta isku dhacaan idhaahdaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasiirka kuma kalsoonin nidaamkiisa iyo maamulkiisa ay tagaan dawlad shaarkeenaayo jigjiga Itoobiya lagu soo heshiisiyay oo fashilka wasaaraddaada haysata oo fashilka ku haysta khusuusan adiga wasiirka arrimaha gudaha waa markii koowaad ee intay jabhad ka dilaacdo dalka Somaliland adadu ciidanka hoos maadaama wasaaradda arrimaha gudaha tahli kar weyday inaad wada hadal iyo dib heshiisiin ku sameeysid waa markii koowaad ay inta TV soo istaagtay aad caydid madaxweyne qaranka doortay aad ku tiri adoo istirahaan u caayaya madaxweyne daahir yaala kaahin waxaan kaaga soo saaraynaa ulban kaaga soo saarana anagu kaawma naqaano guul waxaan u naqaanaa guul darro waxaan u naqaanaa qoqob waxaan u naqaanaa qabyaalad waxaan u naqaanaa Somaliland quruxda badan aan doonayno xisbiga wadaniga mucaaradku doonayaan in adigu fool xumeynayso oo kulmiye fool xumeeyay oo 8 sano dalka hayseen bulshadii kala dhaqaaqday oo dhalinyaradii reer Boorame wax bartay ee saqaafada lahaa ee xadaaradda lahaa ee hooyadii Somaliland ahayd inaad xabsi ku kurtid oo mudaharaad hadda u diyaar yihiin aan doonayaan inay badbaadiyaan 3 Somaliland inay maanta ku badbaadiyaan aragtidooda aqooneed aragtidooda saqaafadeed xadaaro
ay hadal ku badbaadinayaan waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda Soomaaliland inay dhalinyarada reer Boorama xidhan ee tacadiga ku xidhan ee xadgudubka ku xidhan xorriyadoodii loo soo celiyo waxaan ku baaqaynaa in dhalinyarada darbi jiifka ah baahida iyo balanbalka ka muuqday ee dawladnimada in soo biday in xorriyadoodii loo soo celiyo waxaan ka xunnahay in muddada 8 sano kulmiye joogay dalkii baaba'ay wasaaradda dhalinyarada ciyaaruhu waxay ku fashilantay in qaranka u samayso jadwal ciyaareed iyo nidaam ciyaareed day to day activity waxay ku faanayeen barnaamijkii Soomaaliland marathonka loo bixiyay ee sanadkii hore ka baxayba Hargeysa lagu qabtayba waxa maalgelisay oo dadka soo casuuntay oo tigidhada ka soo bixisay oo dad wufuudii dadka jahanabka wadamada jaarka sida Ethiopia iyo Djibouti dadka u yeedhay soo casuumay dhaqaalaha ku bixiyay waxa weeye shirkadda Dahabshiil Group inay wasaaraddu sheegato waxayna lahayn waa ceeb hadday wasaaraddu karayso inay wax qabato wasiirka arrimaha gudaha ugu yeedhay inuu isku sawiro waxay qaban lahayn koobka gobolada Soomaaliland bay qaban lahayn ay tahli kar waayeen una 4 sano la qaban waa bahdilka wasaaradda ka muuqata xiriirkii shaqaynayna madaxa iskaga duubeen marka waxaan aad uga xunnahay inay foolxumadii u yaqaanaan qurux Cabdiraxmaan Maxamuud Haybe Rio News magaalada Hargeysa